soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Sihaam waxaana jira 15 sano haddana waxaan go'aansaday inaan idinkaga sheekeeyo qisadeyda oo aan idinla wadaago wixii nagu dhacay aniga iyo walaashay Samsam waxaan nahay mataano waxaana ku nooleen xarunta agoonta lagu xanaaneeyo dhammaan caruurta halkan joogta waa mataano waa xarun agoon oo kaliya qaabisha caruurta mataanaha ah maalin maalmaha kamida waxay ahayd dhalashadeena waxaana ka soo qayb galay dhammaan caruurta xarunta si ay noogu hambalyeeyaan sanad deeni sideedaad ee dhalashadeena waxay ahayd maalin cajiib ah oo qurux badan dhamaantoodna waxay noo rajeeyeen mustaqbal wanaagsan ugu dambeynna waxa noo tahniyadeeyay maamulihii xarunta wuxuuna naga dalbaday inaan aadno qolkeena si aan u jiifano maalintii xigtay ayaa maamulihii xaruntu wuxuu xafiiskiisa inoogu yeeray aniga iyo mataantayda Samsam waxaan aragnay nin oo kiyaalo caafimaad iyo dhar cad sita waxa muuqanaysa inuu dhakhtar yahay wuu noo dhool cadeeyay asagoo naxariis inoo muujinaya wuxuuna nagu yiri Sihaam iyo Zamzam anigu waxaan ahay Dr. Mustafa waan idin wadayaa si baaritaan la idinkugu soo sameeyo oo looga warhayo caafimaadkiina dhulka ayaa nala gariiray maxaa yeelay hadda ka hor lama aanan kulmin qof xarunta banaankeeda ka yimid xitaa dhaqaatiir kuma aanan arag xarunta waxaana soo xasuustay in caruur badan oo joogtay xaruntan aan dib dambe loo arkin maalintii dhalashadooda kadibna akhbaartooda la waayay walaashii ayaan gacanta ka qabtay waxaana isku dayay inaan cararno laakiin maamulihii xarunta ayaa albaabka naga hor istaagay albaabkiina wuu xiray wuxuuna igu yiri ha isku dayin inaad cararto waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino waxaanina waa baaritaano iska caadi ah waxaana u sameynaynaa si aan idinkugu diyaarino inaad ka baxdaan xarunta oo aad la noolaataan qoys hantiilayaal ah oo noloshiina kafaalo qaadi doona waxaadna ku noolaanaysaa nolol caadi ah sida caruurta asaagiina ah hadalkaas ayaa qalbigayga dejiyay waxaana maskaxdayda ku soo dhacayay waxyaabo dhalanteed ah oo aan had iyo jeer ku fikiri jiray sida inaan helno laba waalid oo na daryeela si wanaagsanna inoo koriya waxaan fiiriyay Samsam madaxeeda ayayna igu ishaartay inay arinta ku qanacsan tahay waxayna tiri nawad waan raacaynaaye si aan u aragno caalamka xarunta banaankeeda oo aan ugu noolaano nolol dabiici ah dhakhtarkii ayaana ugu dambeyn waday waxaana ka baxnay xaruntii agoonta anagoo la socono Dr. Mustafa intii aan u sii soconay xaruntiisa caafimaad ayaan bilaabay inaan sawirto guriga aan ku noolaan doono iyo labada waalid ee aan ugu yeeri doono hooyo iyo aabe iyo qalabka ciyaarta ee ay inoo soo iibin doonaan waxaa riya maalmeedkayga iga soo kiciyay hadalka Dr. Mustafa wuxuuna yiri waatan xarunteydii hadda ayaan soo gaarnay aad ayaan ula yaabay markii aan arkay waa derbi weyn oo qaybtiisa kore silig lagu wareejiyay argagax ayaana ku bilowday noloshayda gaarigii ayaa istaagay waana ka soo degnay markii aan sii galaynay ayaa waxaan qoraansaday qol aad u weyn oo ku yaalay dhinacayga midig qayb albaabkiisa ka mid ah ayaana furneed waxaana gudihiisa uga jeeday koox caruura oo mataano ah kuwaas oo aad u eegaya nin maariin ah ninkaas wuxuu haystay kitaab waxaadna u malaysaa inuu qisooyin uga sheekaynayo Dr. Mustafa ayaana nagu yiri xafiiskayga soo gala xafiiskii ayaan galnay anigoo ku dhagan gacanta Samsam mana aanan kala fogaaneyn mataantayda ilbirqsi gudihiis waxaan ku fariisanay fadhigii doctorkii ayaana soo qabsaday cirbad wuxuuna yiri tani waa cirbad waxayna jirkiina ka difaacaysaa cudurka furuqa hadalkaas ayaana ahaa hadalkii ugu dambeeyay ee aan maqalno kadib markii aan galnay hurdo dheer ayaa waxaan ku soo baraarugay qaylada walaashay Samsam indhahayga ayaan kala furay waxaana arkay anigoo kursi ku xirxiran walaashayna ay hortayda jiifto waxaana ku hareereysnaa niman ku labisan dhar cad codkayga meesha ugu sareysa ayaana ku qayliyay anigoo dhahaya joojiya maxaad ku sameeynaysan walaashay laakiin qofna dhag jalaq ima siin waxa ay soo fiiriyay Dr. Mustafa wuxuuna yiri ha ka walwalin kaliya waa baaritaano caadi ah waxyar kadibna waxa ay yimid mid kamida kalkaaliyayaashii wuxuuna iga bixiyay qolkii wuxuuna igeeyay qol kale oo kaligay ah waxyar kadibna waxa ay yimid ninkii maariinka ahaa si degan ayuuna agtayda u fariistay wuxuuna igu yiri caalamka banaanku waa caalam cabsi badan waxaana ka buuxa dagaalo iyo dad xunxun meeshaana waa meesha kaliya ee ku haboon inuu ku noolaado caruur adigoo kale ah wuxuuna bilaabay inuu ii sheego wax walba oo xun oo ka jira xaruntan banaankeeda markaas kadib wuu baxay ninkii maariinka ahaa waxaana ii soo gashay gabar kalkaaliso ah waxayna ii keentay casho si naxariis leh ayayna ii fiirisay waxayna tiri waa dhibane kale ilaahay ha ku ilaaliyo waxaan ku iri waa maxay meeshan waxay igu tiri waa meel tijaabooyin halis ah lagu la sameeyo
sameeyo mataanayaasha waxaan aad uga naxay jawaabteeda waxaana xasuustay walaashay iyo wixii ay ku sameynayeen waxaan ku iri waan ku baryayaa caawi maanta ayaa nimid aniga iyo walaashay ma aragtay walaashay waase sidee xaaladeedu waxay igu jawaabtay hadda ayaan soo maray weyna hurdaysaa alle ayaana garanaya inta ay sii noolaanayso madaxeeda ayayna ruuxday ayadoo shalaynaysa waxaana ku iri mar kale waan ku baryayaa iga caawi sidii aan meeshan uga carari lahaa indhaheeda oo ilmeynaya ayayna igu tiri waan isku dayayaa laakiin caruurtayda iyo shaqadayduba qatar ayay gelayaan 2 isbuuc ka hor ayaan shaqadan helay laakiin muuqaalka adiga iyo walaasha ayaa saameeyay qalbigayga kadibna hadalkeedii ayay sii wadatay waxayna si hoose igu tiri biri aroorta hore isdiyaari habeenkaas hurdo ma aanan ladin waxaana qorsheynayay sidii aan halkan uga baxsan lahaa halkeen aadayaa yaase igu caawin doona fashilinta waxa meeshan ka socda ugu dambeynna waxa la gaaray salaadii fajar si kadis ah ayaa loo furay albaabkii gabadhii ayaana si hoose igu tiri hay soo dhaqso waan soo orday anigoo iska ilaalinaya in banaanka layga maqlo waxaanse ku iri laakiin suurtagal iima ahan inaan halkan ka baxo walaashay la'aanteed waxayna igu jawaabtay naahoogto suurtagal inooma ahan arintaas dadka oo dhan ayaana nagu soo kacaya markaas kadibna arintaas ayaan ku adkaystay wayna iga ogolaatay waxaan galnay qolkii ay ku jirtay Samsam waxaana arkay ayadoo hurdaysa waan kiciyay muddo ayayna igu fiirinaysay indho aad u argagaxsan waxaana ku iri Samsamey macantu ma fiican tahay iima aysan jawaabin wayna i fiirinaysay ayadoo wajigeeda uu ka muuqanayo isbedel gabadhii ayaana aad igu xanaaqday ayadoo leh isboobsi nakaana halkan aan ka baxnay waxaana xarunta uga baxnay albaabkii jikada waxaana halkaas ka helnay baaskiil aan raacno gabadhii kalkaalisada ahayd ayaana uga mahad celiyay wanaagga ay inoo samaysay wadada ayaana ku soconay anagoo degdegayna kadibna waxaan soo gaarnay xaruntii booliis ee ugu horeysay waxaana u sheegnay faahfaahinta wixii nagu dhacay waxaana naqaabilay sarkaal booliis ah wuxuuna noola dhaqmay si naxariis leh wuxuuna naga dalbaday inaan dul qaadano inta dacwadeena la qorayo xafiiskiisa ayuu galay qof ayuuna taleefanka kula xiriiray waxaana maqlay asagoo ku hadlaya cod hoose oo dhahaya digtoore waa maxay arintan annaga ayaad rabtaa inaad caalamka hortiisa nagu fadeexaysid siday labadan cunug ee yaryar si fudud uga soo baxsadeen xarunta qorshaheena oo dhan adiga ayaa fashilaya markaas ayaan ku sigtay inaan suuxo waxaan soo qabtay gacanta Samsam si dhaqso ah ayaana uga cararnay xaruntii booliiska anigoo aad u ilmeynaya halkeen aadayna ma jirto meel gabaad laga dhigto mana jirto meel aamin ah boqolaal fikradood ayaa ku soo dhacaysay maskaxdayda ayadoo xaaladaas aan ku jirno ayaa waxaan nagu dhacay gaari dhulka ayaana ku dhacnay waxaana dhaawac fudud iga soo gaaray gacanta ninkii gaariga watay ayaa u soo degdegay dhankeena wuxuuna nasaaray gaarigiisa wuxuuna noo sameeyay gargaar caafimaad oo degdeg ah wuxuuna igu yiri maxaa ku dhacay walaasha ma waxaad degantihiin meel dhow waxaan ku iri ma haysano meel aan aadno hadda mar kale ayaana qisadeena kaaga sheekayn doonaa wuxuuna geeyay gurigiisa wuuna nagu dadaalay kadibna wuxuuna weydiiyay qoyskeennii waxyar ayaan ka labalabeeyay kadibna waan iska ooyay waxaana uga warramay wax walba oo nagu dhacay xaaskiisa ayaa noo dhoola cadaysay waxayna tiri waxaad soo marteen duruuf adag laakiin halkan waa meesha ugu wanaagsan ee aad ku noolaan kartaan ninkaygu waa wariye ka shaqeeya telefishin caan ah asaga ayaana fashilaya qorshahaas sharta badan ninkeedii ayaa yiri hawlwelina inta aad halkan joogtaan wax dhib ah idinma soo gaarayo waxaadna ku jirtaan ammaanadeyda wuxuuna xaaskiisa ka dalbaday inay si wanaagsan inoo daryeesho kadibna guriga ayuu iskaga tegay maalmo kadib annagoo telefishinka daawanayna ayaan waxaan aragnay akhbaar sheegaysa in la xiray dhammaan ninkii maamulaha ka ahaa xarunta Dr. Mustafa sarkaalkii khaa'inka ahaa iyo dhammaan kooxdii caafimaad ee ayaga taabacsaneed aad ayaana ugu faraxnay maqalka akhbaartaas markaas ayay tiri xaaskii wariyuhu hadda ayay suurtagal idin tahay inaad nolol degan ku noolaataan laakiin waxaan rabaa inaan idinka dalbado hal arintaas oo ah inaad anaga nala noolaataan sida aad arkaysaanba aniga iyo ninkaygu ilaa hadda ma aanan dhalin wax caruur ah gurigeenuna kuma nuurayo caruur la'aanta waxaan fiiriyay walaashay Samsam waxaana arkay ayadoo dhoola cadaynaysa markaas ayaan ku iri taasi waa anaga farxadeena maxaa yeelay ma rabno inaan xarunta agoonta mar kale ku laabanno weligeen ma ilaabayno gabadhii nagu saaciday inaan soo baxsano taas oo qayb ka qaadatay inaan halkan soo gaarno aad ayay u mahadsan tahay kadibna waxaan u mahad celinayaa labadeena waalid ee cusub balse adinku ma garanaysaan qiso mideena u eg mase soo marteen ismiidaamintii aan ku soo baxsanay oo kale ah nagula wadaaga qaybta hoose ee faallada yaysanna idin dhaafin qisada mideena ku soo xigta ee halkan la soo gelin doono waxaan u malaynayaa inay ka cajiibsan tahay kana macaan tahay mideena waan u malaynayaa oo kaliya hagaag tan iyo kulanti dambe
nabaadino.